mahad ilaahi maanta 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 dadkii midooye maanta 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 qarankani beec ma noqon dhulkayguna boob ma galo wadayduna iib ma aha hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida dacalada ay ka joogaan ugu dambeyntii waan gaarnay guushii aan u soo halganay ee cadowga aan kaga difaacanaynay difaacitaanka badda Soomaaliyeed go'aamar qaatile ayaa maalintii shalay shaaca loo qaaday badda la isku haystay in ay leedahay Soomaaliya Kenya ayaa loo sheegay in ay faraha kala baxdo wax kasta oo la halmaala dhulbadeedka Soomaaliya sidaan u muujino farxad iyo guusha u soo hoyatay qaranka Soomaaliyeed daawade marka hore waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan inaad like saarto hadda saar siina shargare oo si shargare akoonada Uhuru Kenyatta iyo shacabkiisa say u arkaan midnimada Soomaali weyn daawadayaal barnaamijkan maanta inta badan diiradda waxaan ku saari doonaa maalintii shalay maadaama ay soo gabagabeysay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ xukunkii kala dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya ee badda guushana ay raacday Soomaaliya haddaba madaxda dalka ugu horeyn madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo muxuu ka yiri barnaamijka ayaa idinku heynaa sidoo kale barnaamijka waxa idinku heynaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud asagana arinta badda markii lagu dhawaaqay muxuu ka yiri sidoo kale barnaamijkeena inta badan waxa diiradda ku saari doonaa farxadda iyo reereenta kala duwan ee ka dhacayso Soomaaliya hadii ahaan lahayd dabaaldegyada ka socdo Muqdisho haddaba xalay waxa ka socday magaalada Muqdisho dabaaldegyo lagu weyneynayo qadiyada badda Soomaaliyeed ay keenay barnaamijka ayaa idinku heynaa ha u dayma lahan sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan igu heynaa taliyaha ciidamada badda Soomaaliya fariinta ku aadan uu soo gudbiyay bulshada Soomaaliyeed iyo inay heegan u yihiin inay la wareegaan ina ka go'an tahay inay hubiyaan badda Soomaaliyeed wax walba oo soo marayo asagana barnaamijka ayaa idinku heynaa waa markale barnaamijkani Man Official ku soo dhawaada barteena YouTube-ka ee Man Official iyo sidoo kale barteena Facebook ee Cabdiraxmaan Xuseen soo dhawaada ayaa idin leenahay hadii lagu yiri badrool badan baa halka ku jira biyaha aniga iska leh qarankani beec ma noqon dhulkayguna boob ma galo wadayduna iib ma aha waa hagaag isku soo noqod wanaagsan ayaa idin leenahay daawade markale aan ku horeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay ilaa iyo maanta waxa ka socdo dabaaldegyo waaweyn oo lagu dabaaldegayo xukunka ay ka gaartay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ haddaba xalay sidee loogu dabaaldegay ee daawasho wacan توصل كتير سدايي أنا أخترعي كيا إن الله خلق ربا أروجو دلكيجا يا بدينا يبان ما دونا يا عيدا ما تسايا دلكيجا أنا ساقلن سامالي وامد حرة سامالي مرة من تسايا ما دونا إنه سامالي marka waxaa Kenya in Uhuru Kenyatta oo Soomaaliya ka dhaxba badda Soomaaliya sare Kenya shaqo ku leh marka Kenya faraha Soomaaliya arma Soomaaliya ay ka dhaxbaado Soomaaliya waa milyoonti madaxweynaha Soomaaliya waa Soomaaliya askar badana naga askar Soomaaliya askar waxaan u dacweynaynaa baddeena waaye madaxdeena mas'uuliyadda oo noo dacwado oo baddeena noo saadisay isaaka Allah khayran magacooda guud Soomaaliya ay tahay amnigooda badda Soomaaliya askar Soomaaliya dadbari tahay badda Soomaaliya askar hadda dadka ay maleynayaan kaayadu inay niman siyaasiyiin inay haystaan hadda ay maleynayaan niman oo maaragtay siyaasiyiin inay badda ku haystaan ma garanaysaa hadda shuruurta Soomaaliya arkaan shuruurta Soomaaliya ana arkaan hooyooyinka Soomaaliya arkaan carruurta Soomaaliya arkaan baddeena hore baa walba anaka iska leeyahay Kenya walba wax qorsheeray laakiin baddeena waa soo cishanay waxaan hore u leen Soomaaliya anaka hore u leen Soomaaliya awal biina been qaadateen waa soo cishanay anaka iska leeyahay aad baan u faraxsanahay awada waa qiireysnahay hadalkay waxaan ku soo koobayaa haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo
وانا لما وراني هجر لي وحلقي بدأ الصومالية أي لو رجل لهايين عندما وضع الصوماليات حق أولها إن الدفاع دان عندما بقول إنه إلى الناس مجرته اسكو في اللانشان قارن إن شاء الله مركب حلية هو جول سويتي إن شاء الله وحنا تشيننا إن الدوان هو قلتونان لما نبريه ويحدوده لو تلقى لنا عندما كبدو إلى إن شاء الله يكون في اللانتونان waxaan kaloo kan aad ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed oo aan leeyahay waa guuligii soo hoyatay mar dambe film maysaan inaad badiina khayraadkeeda aad cid marti uga noqonaysaan ama aad ku hamiyeysaan in badiina la iska guranayo aad isha ka daawanaysaan insha Allah waxa ka faa'iideysan doona muwaadiniinta Soomaaliyeed khayraadka badda ku jira cid dambe oo ajnabiya ama wadamo shisheeye ama kuwa kan isaga soo dhuumanaya insha Allah waxay noqon doontaa inaan tilaabo adag ka qaadi doono waa hagaagi daawadayaal sidoo kale barnaamijkeena waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegay qadiyada badda Soomaaliyeed ee maanta guusha ay raacday Soomaaliweyn waxa uu ka soo maray iyo sidoo kale waxyaabaha dawladda dariska ah ee Kenya ay ku haysay Soomaaliya ee daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم وحان هدنقيا الله سبحانه وتعالى ومانت نجارسيي قوشان تاريخي إيوه من ذلك هلجنكي ديرا دتك iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan عدالة أو كو أستيسن أركتيفوك أقون دروكسن ديرنان ودنيات إلى أنت أمانة ومضى الدفاع دلك يودتك وحا قوليستي حقا وحا قوليستي سرينت الشرعية قوشان وحاله شعبك الصوماليات أو مروا البابا قرب يقاشان وأها مدحدودة إيه دولة أي دورتين مروا البابا oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyada una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hilisay sareynta sharciga xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ waxaa bogaadin mudan baarlamaankii sideedaad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magac dareen dhaxal dhowr waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistee injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad ugu haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama uu ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeena ayna tusaale nool u yihiin jiilasha soo socda ayagoo ku sifoobay difaaca danaha qarankooda dadka iyo dawladda Soomaaliyeed marnaba ma ilaawi doonaan xilkasnimadooda iyo hufnaanta ay muujiyeen qariiqanadii iyo khubaradii dhanka sharciga ee shirkadda Foley Hawk gaar ahaan qareenadii kala ahaa Paul Richler Professor Philippi Sanders Professor Alain Pellet Alina Marino
iyo ugu dambeyn Edward Craven oo dowladda federaalka Soomaaliya u wakiilatay matalaadda iyo jeedinta sharciyeed ee dacwadeena. waxaa iyana mahadnaq mudan guddiga dowladda federaalka Soomaaliya ee har iyo habeenba u taagnaa la socodka maamulka iyo isku xirka dacwadeena ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayna ka mid ahaayeen danjirihii hore ee dalkeena u fadhiyay Brussels danjire Cali Saciid Fiqi xeeraaliyihii hore ee dalka abukaate Axmed Cali Daahir iyo xeeraaliyaha haatan garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud qareen Xamza Ibraahim Cabdullaahi danjirihii hore ee qaramada midoobe mudane Yuusuf Garaad Cumar iyo danjiraha haatan mudane Abukar Daahir Cusmaan Abukar Baale. difaaca hantideena qaran ma ahayn wax fudud markii la eego inaan nahay dad iyo dowlad la daala dhacaya duruufo aad iyo aad u adag kana soo kabanaya sanado badan oo burbur iyo dowlad la'aan ah haddana ku shaqeeya taageerada wadaniyad iyo isku duubnida ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed taasoo na siisay dhiirigelin iyo awood dheeraad ah oo aan ku ilaalinayno ama aan ku wadayno halgankeena. haddaba daawadayaal madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegay maalinkii la doortay ilaa iyo maanta inuu kala kulmayo cadaadisyo fara badan dhanka xukuumadda Kenya. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudanayaal iyo marweyn tan iyo markii la doortay waxaa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed amni dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dhabaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka. 3 bilood kadib markii aan xafiiska la wareegay hoggaanka Kenya waxa ay go'aansadeen oo si bareer ah u bilaabeen faragelinta siyaasadda gudaha dalkeena iyagoo gudaha dalkooda ka soo abaabulay ururo siyaasadeed oo ay uga dan lahaayeen inay culays jahwareer iyo xasilooni darro siyaasadeed kaga abuuraan gudaha Soomaaliya. ujeedada ka dambaysa ay ahayd inay u gool xaarto inaan dib ula soo noqono dacwadda badda cadaadis awgis kadib markii ay Kenya ku guul daraysatay cadaadiskaas waxa ay bilowday inay xadgudub toos ah ku samayso qarnimada. hoggaanka dowladda Kenya waxay galiyeen maal iyo waqti badan in siyaasad ahaan nala go'doomiyo oo dowladaha dariska ah iyo guud ahaan qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba ay naga gudbiyaan sawirro been abuur ah oo aad iyo aad u foolxun. sawirkaas oo dhaawac iyo bahdilba ku ahaa sumcadda dowladdeena soo kabanaysa. fariimahaas khaldan oo lagu baahiyay wargeysyada caalamka iyo kuwa gudaha ee Kenya oo lagu beegsanayay shakhsiyan madaxda dowladda si sumcaddooda loo dhaawaco. hoggaanka dowladda Kenya waxay abaabul ciidan oo lid ku ah madax banaanida iyo danaha shacabka Soomaaliyeed ay ku fulisay duqeymo dhulka iyo cirka ah oo aan loo meeldayin. dhibaatadaas oo galaaftay naf iyo maal muwaadiniin Soomaaliyeed oo birmageeda ah. waxaa sidoo kale xusid mudan ama la xusi karaa burburka loo geystay magaalooyin iyo xarumaha shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee ku teedsan xuduudaha labada dal. Kenya waxay qaaday tallaabooyin ugub ku ah curfiga siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka ayadoo isku dayday in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkeena kadib markii ay olole xoogan ka bilowday xarunta qaramada midoobay kaasi ujeedkiisu ahaa in Soomaaliya lagu soo rogo qaraarka tirsigiisu yahay 1267 oo ay Kenya uga dan lahayd inay ku xayirto
kulana wareegto hantida ganacsada Soomaaliyeed iyadoo lagu suntayo argagixisnimo. Xukuumadda Kenya waxay qaaday jid kasta oo ay ku carqaladeynayso habsami u socodka dacwadda badda, isla markaasna ay ku doonayso in qol mugdi ah loogu xalaaleeyo baddeena iyadoo ka dhex bilowday ururada heer gobol, heer qaaradeed iyo heer caalami ah. Hagardaamooyin lagaga been sheegayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo halgankii xaqa ahaa ee aynu ugu jirnay difaaca baddeena, annagoo u marayna dhabbaha cadaaladda iyo xaqsoorka ee ay dunidoo dhan ku midaysan tahay. kadib markii aan ka dhagaadegnay cadaadiskaas caalamiga ah, wuxuu hoggaanka Kenya bilaabay inuu toos u fargeliyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka, iyagoo afduubtay hanaanka doorashada Jubbaland. arrinkaas oo ay ka biyadiideen ama ay ka gilgisheen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta deegaankaas. waxaanu garowsannay in tallaabooyinkaas guraacan ee ka dhanka ah madax bannaanida Soomaaliya ay u qaateen madaxda Kenya si madaxda Soomaaliyeed ay u fuliyaan danahooda iyo damacooda ku wajahan boobka badda Soomaaliyeed, iyaga oo marar badan si aan gabasho lahayn noogu xaqiijiyey inay si buuxda noogala shaqayn doonaan ama noogala shaqaynayaan hagaajinta xiriirka wada shaqaynta ee ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland haddii aan ka tanaasulno dacwadda badda. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, mudanayaal iyo marweyn, waxaanu u dhaarannay inaan ilaalinno ammaanada aan u qaadnay shacabka Soomaaliyeed. damiirkeennana marnaba nama siinayo inaan dhaxalka jiilasha soo socda ku bedelano dana shakhsi ah ama dana siyaasadeed ama mid dhaqaale iyo mid kursi oo madaxleedkiisa uu kooban yahay. waxaanu door bidnay inaan marnaba aynan qaadan gunnimo dharag leh, aanu ka dooranno gobonimo gaajo leh. tallaabo kasta oo aan qaadnay iyo go'aan kasta oo aan gaarnay waxaa halbeeg u ahaa ilaalinta qabka Soomaaliyeed, qaranimada Soomaaliyeed, midnimada Soomaaliyeed iyo sharafka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaa maragma doonta ah in cadaadiska iyo fargelinta qaawan ee hoggaanka Kenya aysan ku koobnayn dowlad goboleedyada dalka oo kaliya, balse waxa ay marar badan si bareera isugu dayeen inay khilaafaad ka dhex abuuraan hoggaanka dalka. dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ixtiraamaysa shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah waxay caddaynaysaa inay u hoggaansamayso go'aanka maxkamadda, annagoo ka rajaynayna dowladda dariska aan nahay ee Kenya inay ilaaliso sarreynta sharciga caalamiga ah, ayna iska ilowdo damaceeda ku salaysan marin habaabinta iyo boor isku qarinta, taasoo beddelkeedana ay go'aanka maxkamaddu u aragto fursad lagu xoojin karo xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee dariska ah. Soomaaliya inay Kenya daris la noqoto ma dooran, ee Allah awoodda leh ayaa qadaray. waan isku qasbannahay inaan nabad iyo daris wanaag ku wada noolaanno. Soomaaliya taas ayay ku taamaysay, weligeedna ka go'nayd, haddana soo dhaweynaysaa. shacabka Kenya waa shacab wanaagsan oo nabad jecel. waxaan rajaynaynaa hoggaankooda inay mudnaanta siiyaan sidii gobolku u noqon lahaa meel nabdoon oo barwaaqo ah, shucuubtiisuna ay si wada jir ah u baadigoobaan mustaqbal wanaagsan iyo barwaaqo sooran loo dhan yahay. maadaama maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan meel mar ah ka soo saartay qadiyaddii xudunta u ahayd khilaafka labada dal, waxay dowladda federaalka Soomaaliya ay xoojinaysaa ama adkeynaysaa nabad ku wada noolaanshaha
iyo wax wada qabsiga labada dal iyo labada dad iyadoo meel looga soo wada jeesan karo ama looga soo wada jeesanayo argagixisada duulaanka ku ah xasiloonida iyo amniga gobolka shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed sidii geesinimada iyo hagar la'aanta lahayd ay u garab istaageen dawladooda muddadii ay socotay dacwadu iyagoo aan u kala harin difaaca qadiyadan guushani ma aha mid u soo hoyatay cid gaar ah waa hagaagka daawadayaal madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayuu ahaa kaas muxuu ka yiri muxaafad iyo mucaaradbo ila dhageyso mana kala laha muxaafid iyo mucaarad mana aha libin ay leeyihiin shakhsiyaad kooban balse waa guul ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana guul dhaxal reeb u noqon doonta jiilka soo socda waxaan rabaa inaan fursadan qaaliga aan uga faa'iideysto inaan ku dhiirigeliyo siyaasiyiinta walaalaheena ah inay muujiyaan midnimo isku duubni iyo in si wada jir ah looga shaqeeyo ilaalinta danaha guud ee qarankeena leeyahay annaga oo meel iska dhigayna danaha shakhsiga ah iyo aragtiyada kala duwan ee aan ka leenahay siyaasadda Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha waarto wabillahi tawfiiq waa hagaagkaasina wuxuu madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo daawadayaal sida halka sida tooska nooga daawanaysaan waa barteena YouTube-ka Eman Official iyo sidoo kale barteena Facebook page-ka aan ku leenahay Cabdiraxmaan Xuseen markale soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay YouTube-ka fadlan daawada subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalo aad u xasaasi ah sidoo kale barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud asagana muxuu ka yiri arinta badda Soomaaliyeed ay guusha ay ku raacday markale baleelada wax yar qof haysto nolol fiican iyo lacag aad iyo aad u tiro badan ee inta soo laalaabay yirmaya cadkan badda ee Soomaaliya si aan loo dhicin ama aan u baxsanin ayaa u taagnaanaya waxaan filayaa ammaan mas'uuliyiinteennii iyo dadkeennii dawladda ka tirsanay ay mudan yihiin ka badan ayay gabadhaas iyo Allah u naxariistay injineer Saalixiba ay mudan yihiin waxaan rabaa inaan si guud aniga waqtiga aan joogay intii ila shaqeyso dhawaa maasiyiin intii iga horeysay ee hawsha soo gashayna sida halkan looga sheegay waa maasiyiin laana meeshay keenan baan ka sii wadno anaga wax si dul saarnay intii naga dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo raggiisina waa mahadsan yihiin iyaguna waa ku adkaysteen meeshii in lagu haayo oo hore loo sii wado madaxweynaha wax badan oo ku kala ra'yi duwanaha jiro madaxweyne farmaajo laakiin qadiyadan waa ku amaana waan uga mahad celinaa waa hagaagi daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan soo gaarnaa waa guntii gabagabadii barnaamijkeena ee Cabdiraxmaan Yare Eman Official sidoo kale daawadayaasha qiimaha ee qadarinta mudan waxay nagala socon karaan barteena Facebook ee Cabdiraxmaan Xuseen aad ay u mahadsantiin sida aad u daawanaysaan barnaamijka daawadayaal inta barnaamij midkaan la mid aan ku kulmi doono waana Cabdiraxmaan Xuseen Macalin Maxamed oo idin leh السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق تمر بنا الأيام سرعة